waa degdeg iyo galwareed taliyayaasha ciidamada kala duwan ee dalkeenna oo go'aan adag qaatay rooblana ka diiday inay amarkiisa qaataan si cadna uu sheegay inay ka fogaanayaan arrimaha siyaasadda iyo ku milankeeda waa guul iyo amni qaran oo markan la gaarayo warshaar gareeya oo sii faafiya muuqaalkan iyo go'aanka adag ay qaateen taliyayaasha ciidamadeenna qaranka waa galwareed iyo sabti waxaan soo koobi doonaa daawadayaal go'aanka taliyayaasha ciidamada rooble ay ku wargeliyeen inaysan amarkiisa qaadan doonin iyo digniinihii kala duwanaa ay u direen ciidamada iyo saraakiishooda oo ay sheegeen inay dhaqangelinayaan waan falanqayn doonaa balse marka hore sheer dheh muuqaalkan oo like-na saar sii gaarsi saaxiibada oo daawada hubi inaad like saartay aadna shargaraysay muuqaalkan waa hagaag aynu ku bilownee taliyayaasha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaare Rooble ku wargeliyay in aysan ka qaadanaynin amar kana fogaanayaan siyaasadda. Rooble ayaa dhawaan isugu yeeray taliyayaasha ciidamada booliiska, militariga, asluubta iyo nabad sugidda isaga oo ka dalbaday inay amarkiisa kaliya ku shaqeeyaan oo aysan jirin cid kale ay ka amar qaadanayaan. hase yeeshee taliyayaashan ayaa qaadacay go'aanka Rooble iyo in awood uu la wareego ciidamadii iyo amnigii qaranka. waxay si cad u sheegeen taliyayaasha ciidamada in digniino ay siiyeen saraakiisha iyo ciidamada kala duwan ee dalka, isla mar ahaantaana ciidamadu aysan ku milmeynin siyaasadda isdiidan ee dalka ka taagan iyo arrimaha khilaafaadka ee madaxda qaranka. wuxuuse ugu beer qaboojiyey intaa beddelkeeda ciidamadu ay ka shaqaynayaan sugidda amniga, qaabilaadda wax walba oo khatar ku ah amniga caasimadan iyo si guud Soomaaliya, balse aysan yeeli doonin fulinta amar shakhsi gaar ah oo mas'uul gaar ah, taas oo la yaab iyo jigbax ku noqotay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Maxamed Xuseen Rooble. taliye Odowa iyo taliye Xijaar ayaa sidoo kale tilmaamay in mas'uuliyad weyn ay ka saaran tahay amniga guud ee Soomaaliya, isla markaana ra'iisul wasaaruhu iyagu ay ka qaadanayaan kaliya amarka la xiriira amniga doorashooyinka iyo qaabka loo wajahayo, balse sugidda guud ee amniga ay tahay mid saraakiisha iyo ciidamada ay ka wada shaqaynayaan. Rooble ayaa rabay in dhammaanba ciidamada kala duwan ee qalabka sida ee dalkeenna isaga ay hoos yimaadaan, amarkiisa qaataan, howlgal u diray ay fuliyaan, taas oo loo fahmi karay in haddii ay gacanta u geli lahayd Rooble maamulka ciidamada dhammaan ay suuragal noqon lahayd inuu ku weeraro farmaajo iyo villa Soomaaliya. waana sababaha ciidamada iyo taliyayaashooda ay si cad ugu sheegayaan inay ka fogaanayaan ku milanka siyaasadda iyo ku xiranka shakhsi ama siyaasi gaar ah. arrintan ayaa hadalhayn weyn ka dhex dhalisay xafiisyada Rooble iyo taliyayaasha ciidamada. hadda amar buuxa ayay qabaan dhammaan taliyayaasha iyo saraakiishooda oo la xiriirta inaysan siyaasadda ku milmi karin, iska badaa ciidankii badbaado qarane xitaa amarka Rooble aysan qaadan karin. tan ayaa dhabarjab iyo fajac weyn ku noqonaysa ra'iisul wasaare Rooble iyo xubnihii mucaaradka ahaa ee isku bahaystay in marka hore gacanta ay ku dhigaan dhammaan ciidamada kala duwan ee dalka oo ay sheegeen in farmaajo amarkiisa ay qaadanayaan. hase yeeshee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdilaahi Farmaajo ayaa aaminsan in ciidanku ay yihiin haybadda qaranka iyo ku ilaaliya sharciga iyo kala dambeynta, ayna muhiim tahay in ciidankan loo adeegsan dana gaara iyo mid siyaasadeed. waana sababaha keentay in taliyayaasha ciidamada ay soo saaraan go'aano cadcad oo la xiriira ammaanka guud ee dalkan, waxaa laga rabaa askariga iyo sargaalkiisa iyo tallaabada laga qaadi doono askarta iyo saraakiisha ku milanta siyaasadaha isdiidan dalkan, isla markaana garab siisa mucaaradka. hadda dalka waxaa ka taagan khilaaf weyn, farmaajo iyo Rooble weli ay hayaan arrintoodii xal lagama gaarin. hase yeeshee dhan kale waxa uu culays saarayaa si uu garabkiisa u soo marin lahaa dhammaan taliyayaasha ciidamada oo isaga looga amar qaadan lahaa. xaaladda hadda way sii kulaanaysaa, caalamkii ayaa soo faragelinaya. guud ahaan daawade waa naginta warbixinteennii gaarka ahayd aan ku eegaynay amarka Rooble iyo didmada taliyayaasha. tan iyo kulan dambe, nabadgelyo.